Assalaamu calaykum dhammaantiin kusoo dhawaada muuqaalkeena cusub ee maanta waxaan ka hadlaynaa nin Yamani ah oo dunida oo dhan caan ka noqday laguna naanaysi jiray Spider-Man-ka Yaman. Ninkan oo lagu magacaabi jiray magaciisa saxda ah Alqacqac ibnu Antar. Alqacqac ibnu Antar waxa uu dadka kaga yaabin jiray sida uu u fuuli jiray buuraha aadka u dhaadheer isagoo aan isticmaalayn wax qalab ah oo badbaado. Bal aan wada eegno sheekadiisa iyo sababta uu caanka ku noqday saaxiibayaal. Alqacqac ibnu Antar wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo ku dhashay dalka Yaman. Yaraantiisii wuxuu jeclaa sida buuraha loo fuulo. Markii uu bilaabay inuu muuqaalo ka duubo fuulitaanada, dad badan ayaa la yaabay geesinimadiisa. Wuxuuna kori jiray buuro dhaadheer, dhagaxyo toosan iyo meelo aan dadka bini'aadanka aysan ku dhiiran karin inay fuulaan. Taasi waxay sababtay in dadku ugu yeedhaan Spider-Man of Yemen ama Spider-Man-ka Yaman, maadaama uu u ekaa qof gidaar kasta kori kara. Baraha bulshada ayaa door weyn ka qaatay sumcaddiisa. Mar kasta oo uu soo geliyo muuqaal cusub, kumanaan qof ayaa daawan jiray. Dadku waxay la dhici jireen dheelitirkiisa jidh ahaantiisa, xoogga jidhkiisa siduu buuraha u qabsanayo, kalsoonidiisa iyo muuqaalada quruxda badan ee buuraha Yaman uu ka soo gudbin jiray. Dad badan ayaa ninkan Alqacqac ibnu Antar ku siin jiray lacag si magacooda ugu soo qoro buuraha ugu dhaadheer dalka Yaman. Dad badan ayaa u arkayay inuu yahay astaan muujinaysa quruxda dabiiciga ee Yaman, halka qaar kalena ay ka warwari jireen khatarta uu naftiisa u gelinayo. Inkastoo uu caan noqday, shaqada uu qabanayay ma ahayn mid sahlan. Fuulitaanka meelaha dhaadheer iyada oo aan la adeegsanayn wax qalab badbaado ah aad ayay u adag tahay, waana mid aad iyo aad u khatar badan. Khubaro badan ayaa marar badan ka digay in dadka caadiga ahi aysan ku dayan ninkan la yidhaahdo waxa uu sameynayo Alqacqac ibnu Antar. Ninkan la yidhaahdo Alqacqac ibnu Antar wuxuu sii watay jacaylkiisa buura fuulka. Sanadkan hadda aynu ku jirno 2026, gaar ahaan bishiisan 6 ee Juun 12-keedii, maalinkii ay ku beegneyd Jimcaha, ayaa waxaa la soo sheegay war murugo leh. Alqacqac ibnu Antar ayaa geeriyooday intii uu ku jiray mid ka mid ah buur fuulitaanadiisii ugu dambeeyay. Sida ay wararku sheegeen, wuxuu ka dhacay meel aad u dheer oo ku taala dalka Yaman. Geeridiisa waxay murugo ku noqotay taageerayaal badan oo dunida dacaladeeda ku nool. Baraha bulshada waxaa lagu faafiyey fariimo tacsiya iyadoo dad badan ay ku tilmaameen nin geesi ah oo noloshiisa ku bixiyey wax uu jeclaa. Alqacqac ibnu Antar wuxuu noqday qof malaayiin qof yaqaanaan, waxaana lagu xasuusan doonaa naanaystii uu dunida ka helay ee ahayd Spider-Man of Yemen. Adiga maxay kula tahay sheekadiisa? Ma u aragtaa geesinimo mise waxaad u aragtaa khatar aan loo baahnayn inuu sii joogteeyo? Fikirkaaga noogu reeba qaybta faallooyinka. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, ha ilaawin like, share iyo subscribe. Mahadsanediin dhammaantiin. Intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga, aad iyo aad baad mahadsantihiin.